habeen wanaagsan dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka Afrikada bari saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan idin haya caawa waxa kamid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta buuq iyo xasarad ay ka dhacday ajendaha baarlamaanka uu ka doodayay ayaa la isku khilaafay laascaanood duqeyn baa ka dhacday ciidanka Soomaaliland ayaa beegsaday guriyo ay shacab leeyihiin dhimasho iyo dhaawacna waa ay jirtaa jigjiga xalay waxa basbeelay oo dab uu burburiyay suuqii weynaa ee Taiwan-ka loo yaqaanay qasaare xoogan ayaana halkaasi ka dhashay waa masiibayna wada taabatay dhammaan ummadda taabatay dhaqaalihii ummaddu halkii uu yaalay ayay masiibadani ku dhacday waa qadar ilaahay baan leenahay ilaahay tiisana waan ku qanacaynaa ummadayda qaaliga waxaan leeyahay qadarta ilaahay aan ku qanacno Ali Jeyte waxa uu eedeyn culus dusha uga tuuray dawladda dhexe ee federaalka dawladda Soomaaliya waxa saaran mas'uuliyad inay dalka ka saarto cadawga ilaalisa shacabka gobolka Gado oo u muuqda in Jubbaland ay gacanta ku dhigayso iyo dabcan xubinteennii suugaanta هنا الماذا فرح صودا فصا درت كيتابتا دوغ دالي aan ku bilaabay baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta buuq iyo xasarad ay ka dhacday waxa lagu heshiin waayay ajendaha baarlamaanka ay tahay inuu ka doodo bilowgii fadhigaba xaaladdu sidan ayay noqotay ilmaanada sharafta fadhiista ilmaanada fadhiistan ilmaanada sharafta hala fadhiisto kadib xubnaha baarlamaanka ayaa ku kala aragti duwanaaday ajendaha uu gudoonka hor dhigay xubnaha golaha shacabka waa idin dhageystay jadwalka sheegaysaan ra'iisul wasaaraha waxa uu yeeray guddiga joogtada 12 bisha no ra'iisul wasaaraha waxa uu yeeray guddiga joogtada waxayna ka codsadeen la xisaabtanka wasiirada iyaga ka codsaday 12 bishan Juun hadda foodo u taagantiin de qof foodeyn karma ama waa garaaci karaa miiska xafiiska ra'iisul wasaaraha warqadda ka soo baxday waxa ka codsaday guddiga joogtada ayagana u yeeray ra'iisul wasaaraha la xisaabtankan u yeeray taa haylaahina 20 xildhibaan oo yeertay oo qortay kana hadlaysa arrinta amniga taliyaha booliska u yeertay wasiirka waan u yeeran karnaa la xisaabtana oo imaaday jadwal la idin qoray ma jirto guddiga joogtada jadwalka qoray kala xisaabtama guddigayna joogtada oo annaga aan dooranay annaga la xisaabtamayna laakiin midda maanta taagan wasiirka xaq looguma leh guddiga arrimaha gudaha ana ka tirsan wax warbixin oo aan ka haayo wasiirkaas ma laha sidaa awgeed wasiirka iska laabto ajendaha aan ka dhigano inaan baarlamaankeena isaxno oo aan halkan albaabada xirano oo annaga wixii naga qaldan aan saxno markaas dalkanaas noo saxmay haatanna laascaanood duqeyn ayaa saaka ka dhacday bartamaha magaalada laascaanood inkastoo dagaalka ay bilaabeen dagaalamayaasha dadka deegaanka oo fariisimada Soomaaliland ay duleedka laascaanood ku leedahay madaafiic ku garaacay kadib Soomaaliland madaafiic bay ku soo jawaabtay kuwaasoo guriyo shacab ay leeyihiin ku habsaday dhamashiya dhaawacba waa la soo sheegayaa inkastoo tirada la isku khilaafsan yahay isbitaalada magaalada ayaa la geeyay dhaawac ilaa 12 ah sida lagu soo warramayo dhowr maalmoodba laascaanood dagaalka way ka nasatay inkastoo weli labada dhinac ee islaynaya ay xabad u joog yihiin deegaanadaasi waxa isku haya dadka deegaanka oo Soomaaliland diidan iyo ciidanka Soomaaliland oo xarun ka dhigtay meel 5 kiiloomitir u jirta duleedka magaalada waa saldhigga weyn ee Gooja Cadde wahagaag haatanna jigjiga habeennimadii xalay suuqa weyn ee Taiwan-ka loo yaqaanay bartamaha jigjiga dab baa qabsaday lama oga dabkan waxa uu ka dhashay dhammaanba waxa burburay hantidii halkaasi ay dadka kaga beec mushtari jireen suuqana waa uu basbeelay xalay markii uu dabka cirka galay xaalka sidan ayuu ahaa والله لا يمكن لما قرمي والله mas'uuliyiinta dawladda deegaanka ayaa ka hadlay qasaaraha halkaasi ka dhacay waa masiibayna wada taabatay dhammaan ummadda taabatay dhaqaalihii ummaddu halkii uu yaalay ayay masiibadani ku dhacday waa qadar ilaahay baan leenahay ilaahay tiisana waan ku qanacaynaa ummadayda qaaliga waxaan leeyahay qadarta ilaahay aan ku qanacno بدل خير قبنا إلهي هاي نوسو قليو هنتذيني
waxaan ilaa hadda la haynin naf baxda ilaa iyo hadda waa alxamdulilah inayna nafi bixin ilaa iyo hadda aan la haynin inkastoon weli baadhitaankii ka boolis ahaan aan ku jirno laakiin weli naf baxday oo hadda weli jirtaa ma hayno marka intaa dhaawaca ay kuwa dhaawacmay idam ilaahay iyagana inuu ilaahay degdeg caafimaad u siiyo ayaabaan rajaynaynaa dadka gurmadka jigjiga gaarsiiyey waxaa ka mid ah Somaliland oo isla xalayba halkaasi u dirtay gurmadka dabdamiska maantana waxaa gaaray xildhibaano iyo mas'uuliyiin Somaliland ka socda ciidanka hadda waa ciidan fiican oo tababaran oo cukan waxaan rajaynayaa qaybo ka mid ah dabku meeluhu ka olci karo inay xakameeyaan u soo jeedaan waa ciidamo xasuusan wixii abaal loo galay waa ciidamo og walaaladood maalintii ay u yimaadeen jigjiga waxay ahayd magaaladii ugu horreysay ee noo soo gurmatay ee nala dhimatay ee naga tegi weyday annaguna aniga oo dadkaygii saa ku matalayna qarankaygii saa ku matalayna ayaannu halkan ku joognaa waxaa hubaala hargeysa madaxdeedii dadkeedii inay iyaguna berri soo wada bixi doonaan insha allahu tacaala dad walaalaa baynu nahay dad isku nafa baynu nahay dhibta jigjiga ka dhacdaa waa dhib hargeysa ka dhacday dhibta idinkeedii soo gaadhana waa mid annagana soo gaadhay وهجاك دقيقة ذي ورك باهنتني في نمايان ولي برتن كجا جرنا قدوميها قبل كهيران علي جيته ومام الكهير شبه اللي أي شيء إنه هلك كقادن أيا مركي أقول رئيسي تاني أنتي خلافك أو بلوضي أيا مجال برنامج أوجب حي إسقوا وير تجي ديجان كبرهانو أيو شباب كرة سدي مروا هلا علي جيته وحو إيدين دوش أوجت وري دولة ده فدرال كسوماليا دولة الصومالية وحصار المسؤولية inay dalka ka saarto cadowga ilaalisa shacabka waxa mas'uuliyo ka saaran tahay hooyada asayda qaadaysa iyo caruurta agoontoobaysa iyo dadka sida macna darrada loo xasuuqayo waxa mas'uuliyadeeda aakhira iyo adduunba lagu xisaabtamaya dawladda Soomaaliya waxaa la rabaa in eeg waxyaabaha la yaab kale oo aad u la yaabanaa waxa ah dawladda Masar ciidan bay soo tababartay Soomaaliya Uganda lagu soo tababaray Eritrea lagu soo tababaray intaanu ka warqabnay Ethiopia lagu soo tababaray hal meel oo dhinacaan nooga aadan jihada bariga baa lagu gurayaa waadana miir kaliya ku jira mas'amacdan baa laga helay meesha halkan inay Soomaaliya ahayn maxaa looga dhowray ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo difaaci kara maxaa looga dhowray ya waxay la tahay dawladdii dhexe ee militariga meeshay ku baaba'aysay ayay tani ka bilowday halkay taasi ku baaba'aysay bay tani ka bilowdayno وهجاك قبل كجدو سيدا هذا موقتا انتيسا بدن دقموينكو وحي أضيعين أو أي تاغيرين مامولكي عصباء اي جبلان اي قدو أسوا مقا عاوضي دقمدا اللوغ با قدام بيسي او قدوميها دقمدا سؤو شاغي إنو تاغير سيهي دولة قبلات كجبلان قدوميو كوحيغين كقبل كجدو معلمو ايا دذال كان وضاه كاسو وريغا يا دقموين كقبل كاسي مروها اللينا وحو يري جبلان waxaan isla soo marnay iyo meeshaan soo marnay iyo waqtigii aan dagaal iyo harjad fara badan aan soo marnay inaysan waxba ku suurtagelin anaguna waan aragnay adunkuna waad aragteen waana ku mahadsantahay shalana saad noo taageerteen maantana Jubbaland aan isla wadna saad u taageerteen aad baan kaga mahadcelinayaa inta markaan ka gudbo waxaad ogtihiin gobolkan Gado waqti badan buu wuxuu ku jiray kala guur iyo siyaasado maxaa dhihi jiray iska soo horjoodo dhibaato badan baa taas lagu soo maray gobolka dhaqaalihiisii baa hoos ugu dhacay maxaa dhihi jiray mashaariicdiisii baa la waayay hay'adii baa qaab u shaqeeyaan waayay mar hadday sidaa noqotay arrinta waxaan goosanay in marka aan aadno wadadii saxda ahayd gobolkan Axmed Madoobe shalay waa diideen maanta waxaan leenahay madaxweyne Axmed weey وهجاك حبنتني سوغانتا ayaa soo socota balse haatan ganacsatada afgooye ayaa joojiyay gabay ahaanba dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii deegaankaasi
ganacsatadu eedeyn ayay soo jeedinayaan haddaba maxaa sabab u ah in ganacsigan la xiro waxaa cabasho u nahay dhibaato degmada Afgooye ka taagan oo u horeyso amni xumo iyo nabadgelyo iyo dhulboob inay intaas u horeeyaan waxaa kow ah ayadoo ganacsatadii la afduubayo oo laga qaadanayo lacag ummadda wadana aan garanay raggii lagu qabtay afduubkana aan weli maxkamad la keenin oo la sii daayay dhegta waa ka maqalnay maxaan ku xiga dhulkii dawladdu lahayd oo xoolaha lagu gadi jiray ama lo lagu gadi jiray ama ari lagu gadi jiray ama lagu gadi jiray qudaar oo loo yiqiin warshada lebanka in shakhsiyaad ay boobayaan dood qabiilna loogu yimid oo ciidan loogu yimid oo hadda la burburshay aan cabasho ka nahay inaad jacayl u muujinno oon u mahadcelinno dadkiina soo garab qabtay ee na caawiyey si aan horumar u gaarno waa ay fududahay adigoo isticmaalaya World Remit waxaad si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaanaad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga way fududahay soo maaha ma tirtiro abaalkaaga tusmadiyo wanaagan وهجاك هاتنا كوسو دوادا حبينتني سوغانتا داينا الماذا فرح صودا فصا ديرتكيتا بتا دو قدالي الله sida dhoolka hilaacay dhul barwaaqo ku taalo dhaleed geela dhex jooga dayahayga u deeqdo dhakhtarkii noloshayday marka dhul la xadaysa irbad laygu dhuftaa dhowrsantii garoowe ku dhaalatayo dhinacyada karkaar ku dhex laafyoona say ahaa dalgobeeday dartaa dhadhamaada macuno wax kastoo laygu dhuho ma dhagaysto oo dhammaantood banaacabkan ka dhagaalahay oo dhammaysay codkaagu quray dhadhama helelelelelelele dalgobeeday jacaylka dhexdeena yaal hee dhalqureyshay haddaynu dhammayn lahayn dhaayaheenna ilmaada farxa soo dhaafasa dhirta kaytaabata doga dhaalin برنامجكني دقيقة ورك عاوي انتهى نو جوجو عبد الفتاح عبد الله صوصاري محمد الفيس وفر سميي انا وانا عبد الرزاق عطوش بان هاي اذن كنا وادكم هاسنتين داوشدينا تانية كلان كينا كنحيغا نبت قليو faa'iidooyinka adeega e-pesa send money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka e-pesa pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka e-pesa global xawilaadaha e-pesa mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga e-pesa goor kasta iyo goob kasta